hagaajinta iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ah qorshaha ugu weyn ee maamulka degmada Galkacyo ee Galmudug. Wadooyinkan oo dhaxmara xaafadaha magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka shaqeynayay mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka degmada Galkacyo oo kaashanaya bulshada ku dhaqan qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Galkacyo si wax loogu qabto wadooyinka burbursan iyo sidoo kale kuwa ay xireen biyaha xaafada ka tirsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Ahmed Ducaale Geele gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Galkacyo ayaa waxa uu sheegay galabta oo bishu tahay 7 bishii 3 2020 waxaan ka shaqeynaynaa wadooyinka halbowlaha oo magaalada Galkacyo hadda ka horna waxaan ka soo shaqeynay ilaa 4 iyo 5 wado ayaan soo habeynaa soo sameynay soo carab bixinay meelahan waxa weeye meelihii biyuhu ay aad u fariisan jireen oo go'naa weeye wadadaasaan galabta furaynaa waxaan marka ka hadlaynaa oo kaga faa'iideysanaynaa galabta saxaafadda magaaladan waxay u baahan tahay laba qaybood ayay u baahan tahay labadaas qaybood oo ah nabadgelyo oo xagga ammaanku baryahan maaragtay uusan fiicnayn oo dhalinyaro maaragtay bahashii qamra cabta ay himiinkii ku soo dheelmato oo magaalada geeseed inta fariistaan bay magaalada ku soo funaanayaan. Siciid Salaad Cilmi gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee degmada Galkacyo ee Galmudug oo ka hadlay dhismaha iyo dayactirka lagu wado qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan Galkacyo ayaa waxa uu tilmaamay Ahmed Ducaale Geele waa sheegay xaqeedii gudoomiyaha sheegay waa muddo bilaan ku jirnaa hawshan waxaana magacaabay madaxweynaha Ahmed Ducaale magacaabay kadib markii xilligiina uu dhamaaday dadkan mas'uuliyadda gobolkan hay'adaha iska danaysteen oo siyaasado iyo wax ayaga aan loo dirsan iska dhaxgaleen inta muddadaas bisha ahayd waxaan qabanay wax muuqda 20 casho waxaan ku jirnay qashin xaqid magaalada oo quftay ilaa iyo mataqaana 180 lowd oo qashin magaalada ka saarnay usbuucan kii hore waxaan bilownay inaan jidad xiran oo biyo gooyeen oo caafimaadka qarribay kuwa dhagax ku xiran yihiin kuwa laga dhistay buushawse iyo xaraari inaan furno jidkan waa jidkii lixaad weeye oo hadda aan ka shaqeynayno ilaa 30 lowd oo mataqaana rakaawaha saarnay baan dhibnay galabtana waxaan u soconaa inaan bal jidkii furno rakaawadii kala bixino annaga hawshaasaan ku jirnaa dad xildoona ma nihin dad hunguridoona ma nihin waxaan mahad weyn u celinaynaa dadweynaha oo gacan lagu siiyay intii aan shaqeynaynay oo dhaqaalihii iyo tan iyo markii la magacaabay maamulka ku-meel gaarka ah ee degmada Galkacyo ee Galmudug ayaa bilaabay wax ka qabashada ololaha nadaafadda iyo sidoo kale hagaajinta iyo dayactirka qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Siraaj Yuusuf, Galmudug TV, Galkacyo.